سلام كدب هدان أحواش إنك ورمو ساكي ندو حلي والله أركي هدان وكلا جرين كي قراب الشدة عيسي بيع بدو وبطنا أعد أموين النبيرة كل غياش عرفت كل عبرة لغوتي ما مو واحد من دايرايو سجال متر ملا إنه كله يهي بلعي سنة إلى يو هذا متر يبر ملا شد مودا إلى 2 متر بعد هاي إن الله وكله هي إن الله وكله هي marka dhaxda waa ka sii weynaanaya marka niyo baa inta la eeg buu ahaa laakiin waxa nooga muuqday in meesha suurta go'an tahay oo meel buu galay shabaab buu galay laga gooyay marka dhaawac waxa uu ka muuqday inay ka go'an tahay tuubaalkii suurta baa go'an kaga yaalagana waayahay gudoomiye marka ma markii ugu horeysay ba qaw sidan oo kale nabir u soo caariyo mise waa hore ay u dhacday arintan kale نيو كل ما هن هرب هذا كورنو ويلي لكن وقتي كلا فوق بأهايين هذه وقتي اللي قلت بس هذا لا بكون يو مالينا يا طبعا كيمياء أبغى مالينا يا وحكسو عاشي هذا نوع فاكير مو مستلابان إنه هذا اللي قلت هذا يكا لكن كانوا ولا فلق غير إنه هاي نبلي كاس لكن مو مستلابان أدوين بوالكتيسه اللي كسي هريين واجستين هذا كان مغادي لنا عيدا مغادي قولي هذي ويو إسكسو عاشي dhinaca jaankana asagana mid baa jiray 90 iyo 9 iyo meelahaasna ka soo caashay baa jiray marka kulay waa xeebaha meelaha wixii ka dhaca ay biyahooda u soo dhacaan wixii ka dhaca dhinaca kan adigoo Cumaan iyo waxa ka soo rogan waxa moodaa inay soo raacaan biyo dhaca kan jaanka marka xillidaasaan ku aragnay kulay kuwa hadda waxa jiray hadda aasaaftooda si baaba'ayso lafahooda ay noqdeen gambaro lagu fariisto gudoomiye marka waxaan la soconnaa maxay tahay marka sababta keenaysa in nibirga inta leeg uu soo caariyo waxaan ognahay in badda xeebaha Puntland ay joogaan doonyo jariif ah dad badan waxay aaminsan yihiin in badda sun lagu daadiyo idinku maxaad u maleynaysaan wada maadaama aan dhaawaca ku aragnay waxaan isleenahay shabaaga inuu ka galay maraakiib waaweyn ay iska soo gooyeen لكن كان هذا معهن كل وانا دوحنا على شيء سند الله بكم مقضي جرب بالك أصلاً واقعنا مركب وحاس لنا هاي حد أكثر أولتا أول مركب من يكون دجان أما لا جس نعبك تانو كوجيان موي أما عيد وش مقابل إيش كوشي موي أما لين ما ينوك أو حكم مغني إن واحد عند عبك تاليو هدو قبل هوا الحين أما إيش يسمون أنتي أما شو بجاري لكن هذا سنت هاي kalluumadii kale ayaa soo raaci lahaa kaliya kuma dhinteen waaya marka maxaa laga yeelay maadaama nimirigu uu yahay wax badda ku nool dhamaan uu xalaal yahay maxay tahay qorshaha ka yeelaysa ka leedihiin niyo wuxuu yeeshay ufuuf marka haddii uu lahaa maalmahaasna badda ku soo jiray wuu jilcay xoogaho wuxuuna yeeshay urur buu yeeshay haddii de wuxuu isugu yahay waa laga faa'iideysan lahaa wuxuu ahaan lahaa subag badan baa laga shiilaa hilib badatay buu ahaan lahaa laakiin se maadaama uu sidaa noqday marka kolay wuxuu noqon doonaa adigu hadda de awood kale looga siyaaran ma laha marka badda cusba abuuda joogaa haddana dhinac naga jira awoodiisa wax badan oo yeelaa ma jirto hadda badda unbaa un furfuraysa maadaama cusba tahay ilaahayna ugu talagalin ku nooleeyey hadda baktigiisana kolay iyadunbaa baabiinaysa marka dadka deegaanka ma uga digteen oo si aysan u isticmaalin maadaama sifooyinkaas aad ku sheegtay ha taas waxay gelin bay ka qaateen daawashii aragti mooye hataa korkiisa hadda cid taabanaysa oo gelaysayna ma jirin marka nin walba uun dul tagayay waxaa weyn unbaa un la eeganayay marka cid kaloo hadda la falgalaysay ma jirin marka qooda amnigana waa un la joogtay oo marka waa inta iftiinka ahay daawashaas unbaa un loo tagayay maadaama wax weyn oo la arki jiray ahayn oo de daabadaas weynaata ilahay بدك خلقه إن لا فيشه مخلوقات في سنة كاملة. waayahay marka wasaaradda kalluumaysiga iyo arintan ma ku wargelisaan ma la xiriirtay إذا ما نحدثين لكن إن شاء الله كل رباط كل إن شاء الله سوري كلام سيرنا قرب أمني قوم بانو لو بدي مرك إن شاء الله قرب كلا وسيرنا إلى واحد أوريه ولا كاسيو وهي ديجان كسوفرة أمني قايبتهم بلا حريرية وإذا كان بيهم بلا كاسيو وزارة كشغالة waayahay si kooban ugu dambeyntii bal xaaladda deegaanka dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo dhanka wax soo saarka iyo amniga ka war dhammaan alxamdulilah ilaahay waa iskale sanadkan sidaad la socotaan baxeebaha goobaha ugu roobo badan bay ka mid tahay roobo badanna waa ka da-een ilaahay bana waa xusan yihiin
marka waxbarashadana waa dee weli taaramkiiba hadda dhow muraajacooyinkiiba bilowday saa la socotaana hadda xarun caafimaad oo weyn ayaa lagu kordhiyay health center ah deegaanka hadda laga furay aan soo furnay khamiista dhawey marka alxamdulilah dhammaan xaaladaha guud waa fiican yihiin dadkana wixii tacbeerooda ku jirna waa ka shaqaystaan wixii badda ku jirna waa ka shaqaystaan wixii kalena waa fitaa kale marka alxamdulilah